kulanti wanaagsan daawadaashana qiimaha badan meel kasta naga maqlaysaan kusoo dhawaada Shabeelle Media. Cabdirasaaq Khaliif Axmed gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland ayaa sheegay inay Somaliland xasuuq baahan ay ka geysatay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Somaliland ayaa ku celcelisay inay halkaasi kula dagaalamayso argagixiso iyo Soomaaliya, Puntland iyo ciidan ka tirsan new booliska dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya. balse Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay cadaadis iyo dhib badan oo gaaray dadka uu asugu matalo in ay sababtay inay dadkaas kacdoon ay sameeyaan. Cabdirasaaq Khaliif Axmed oo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa sheegay inay dadkiisu ay mudan yihiin inay isdifaacaan asoo ah awoodda saddexaad ee Somaliland. Gudoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed waxaa ka sareeya madaxweynaha Somaliland iyo madaxweynaha ku-xigeenka waa nambarka saddexaad ee ugu awoodda badan nidaamka Somaliland ee hadda dowladnimadeedu ku shaqeyso. Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa u muuqda inuu la saftay dadka deegaankiisa amba meesha laga soo doortay qabiilkiisu uu degan yahay. wuxuu ku celceliyay inaysan Sool aysan ku sugnayn argagixiso ay tahay Somaliland iyo dadka deegaanku ay dagaalamayaan. wuxuu ku eedeeyay xasuuq baahan madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi oo isugu uu dusha ka saaray xereg kasta oo nabadda loo xirxiro ninka furfurayo ku tilmaamay inuu dembiyo uu ka geysanayo awood kasta ay Somaliland lahaydna loo isticmaalo dadkiisa sida uu hadalka u dhigay Master Khaliif oo ku sugan magaalada Laascaanood ayuu ku tilmaamay Somaliland dadka u matala deegaanadaas inay yihiin kuwa guul wadayaal aanan matalin dadka deegaanka amba aan iyagu aysan soo dooran. wuxuu ku sifeeyay wasiirka warfaafinta Somaliland Saleebaan Koore iyo kooxaha la midka ah ee Somaliland guul wadeeyo. wuxuu sheegay inuu asugu matalo dadka deegaanka balse uusan u guulwadeyni karin Muuse Biixi iyo dadka ku beesha. Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa sheegay inuu matalo magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool uusan matalin Berbera iyo Hargeysa iyo Gabiley, taasoo ay sheegay dadka deegaanka u matala baarlamaanka iyo golaha wasiirada ay yihiin kuwa u shaqeeya nidaamka Muuse Biixi Cabdi aanan u shaqeyn danaha deegaanka iyo dadka ay matalaanba. Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa ku celceliyay in aysan wax kooxa nabadiid aysan ku sugnayn magaalada Laascaanood ay tahay dadka deegaanka oo ka hor yimid nidaamka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi, taasoo uu ku sheegay in ay dadkaas dhibaatooyin badan hore loogu geystay tabanayeen loogana garaabi diiday. Cabdirasaaq ayaa u muuqda mid dhinaca dadkiisa la saftay. goorsii horeyso shalay ayay ahayd dagaal weyn oo ka dhacay magaalada Laascaanood halka taliyaha ciidamada Somaliland uu matala gobolka dhinaca baashe ninka lagu magacaabo laga qabsaday baabuur iyo tikniko aad u badan oo u cararay xaruntiisii uu ku lahay magaalada Laascaanood tuleedkeeda, halkaas uu u fakaday deegaanada ay ku sugan yihiin militariga Somaliland ee Gooja Cadde ee bariga magaalada Laascaanood. Khaliif Axmed ayaa ninka ugu sareeya Somaliland kuna tilmaamay inay Somaliland. Gudoomiyaha ayaa sheegay in uu tahay in loo hoggaansamo baaqyada ka imaanaya madax dhaqameedka uqaasha gobolka, taasoo ay ku taliyeen in ay dadkaasu ay yihiin kuwa in la bogaadiyo tahay sida ay uga tashadeen ayahooda. soo sheegay inay gobolka ka go'do. Gudoomiyaha wuxuu ku tilmaamay dadka deegaanka odayaasha iyo 33 xubnood inay ka go'do dhaqdhaqaaq kasta iyo is-afgarad kasta ay Somaliland la gelayso dadka deegaankaas ay tahay in lagala hadlo. garaadada iyo 33 xubnood ee dadka deegaankaas ay dhawaan ay magacaabeen. Cabdirasaaq ayaa u muuqda nin garabka Somaliland ka sii baxaya asoo ku sugan magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. wuxuu ku celceliyay inay muhiimad ballaaran uu siinayo inay dadka deegaanku ay yihiin kuwa iyagu inay tashadaan tahay.
madaxweynaha Somaliland ay ku eedeeyay inuu dhibaato baahan u geystay dadkaas deegaanka iyo dadka uu isagu matalo, kuna eedeeyay xasuuqa ka socda deegaanada amba magaalada dhexdeeda inuu ka dambeeyo madaxweyne Biixi iyo kooxo yar oo canaasiir ah oo la tashado sida uu hadalka u dhigay. Gudoomiyaha ayaa wacad ku maray in uu dadkiisu wax aysan raalli ka ahayn uunan qaadan doonin dadka uu isagu matalo Somaliland uu ku matalo. Wuxuu ku celceliyay inuu isagu danaha dadkiisa ay tahay waxa oo inuu ka shaqeeyo ay waajib ka saaran yahay. Magaalooyinka uu soo qaatay oo beesha oo madaxweynaha Somaliland ay degan yihiin amba u badan yihiin ay tahay oo aysan matalin, balse uu halkan yahay halka asiga laga soo doorto kuna matalo Somaliland, aqbalina doonin in la xasuuqo dadkiisa sida uu hadalka u dhigay. Daawadayaasha qiimaha badan warkayna intaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa. Amaana Allah daawadayaal.